shan maalmood kadib inay dhashay. Mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan rabnaa maadaama eedeysana uu ku kacay falka soo horjeeda shariicada islaamka laguna tiriyo sida ay tilmaamayso aayadda 33 suuratu al-Maa'ida noocyada ay ka waajibaan ciqaabaha adag oo lagu tilmaamo xadul xiraab oo muusan sameyn lahayn wuxuu geysan lahaa goobta hadda uu falka ku geysaday oo sida uu qabo qodob 342 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed يعني haddii qofkaas oo waxyaabaas uu xanuunkii uu geystay dhibanada oo muddo 5 yar maalmood ka badan kadibna dhashay uu ku kacay fal kufsi ah ka soo horjeeda shariicada islaamka isla markaana waxaan codsanaynaa in lagu qaado laguna xukumo xukun waafaqsan shariicada islaamka maadaama aan horkeenay maxkamadda aan horkeenay marqaati ku cadeeyay dambigiisa qiraalkan uu kooka yahay meel ka sareyso qiraal loo noqdan aysan jirin uu garsoorkan ka hor cadeey xafiiska hore aantuna ka hor cadeey marka mudane gudoomiye waxaan codsanaynaa oo aan ku soo gabagabeynina inuu mutaysto ciqaab adag isla markaana lagu xukumo xukun waafaqsan shariicada islaamka ujeedo xukun maxkamadeed maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha 2020 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 6aad waxay ku dhawaaqaysaa xukun dacwad ciqaabeedkii loo heestay Dable Bool Aadan Cabdiraxmaan Beyle ina Faadumo Cabdullaahi Xasan 22 jir ah ku dhashay degan Baydhabo ka tirsan saldhigga degmada Baydhabo gaar ahaan rugta Bakiin kaas oo ay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeysay in uu si bareer ah ugu geystay kufsi dhibane Cilaamo Ibraahim Cabdiraxmaan ayada oo ah qof xaamilo ah 9 biloodna ah waliba waxa lagu soo eedeeyay adiga oo ku labisan dareeskii ciidanka booliska iyo qorigii AK47 ay dawladda ku siisay in aad geysatay kufsigaas ayadoo u soo socota gurigeeda kuna bilowday dharbaaxsho kuna qabatay qoriga AK47 ahaa aad wadatay kadibna aad u geysatay kufsi ayadoo ay tahay xilli galabnimo ah abbaare 12 saac iyo bar galabnimo kuuguna yimid adiga oo hawshii kufsiga ku dhex jira taliyahaaga rugta Bakiin wuxuu xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida kugu soo eedeeyay in aad handadaad iyo isku daydil u geysatay gabadhii la socotay dhibanad Cilaamo Ibraahim Cabdiraxmaan waxay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qodobka 398 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ciqaabta ay tilmaamayaan dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka uu ka hor bixiyay maxkamadda horteeda adiga oo ku labisan qori AK47 ah iyo dharkii dareeskii ciidanka booliska Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay marqaatiyadii la hor keenay maxkamadda horteeda midna ay u dhageysatay marag furkooda waxa maxkamadda u cadaatay in eedeysane Dable Bool Aadan Cabdiraxmaan Beyle uu si bareer ah u geystay kufsiga lagu soo eedeeyay markay dhageysatay maxkamadda codsiga qareennada oo ahaa in eedeysanaha loo naxariisto sidaas darteed maxkamadda waxa u cadaatay in eedeysanaha uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo eedeeyay waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan